walaalayaal muxaadarada koowaad muktamarkeena maanta ku bilaabanayno sidaan horey u sheegay waxaynoo ku qoran doctor sheekh maxamuud cabdiraxmaan maxamuud roori oo aada wada garanaysaan. doctoorku waxa uu dhinac waa sheekh dhamaystiran oo aada wada garanaysaan, qoraallo fara badan iyo khudab iyo nashaadaad fara badan oo dacawiyana hore uga soo qeyb qaatay. machadka almuntada alislaami ee ku yaala magaalada qarba soomaaliya maamulihii asaasay ee midibada u taagay buu ahaa. ardaydii machadkaas dhiganaysay ee sharafta u yeesha fursadda u helay inay hoos fadhiistaan doctoorka ay ka faa'iidaystaan ayaa ka mid ahaa. waxaa muddadan dambeeto oo uu carigan joogay ingiriiskana uu howlo badan iyo macalinimo wuxuu ka ahaa waan leeyahay professor iyo macalin uu ka ahaa jaamacado kala duwan oo qaarkood ay ku yaaliin waddankan, qaarna ay ku yaaliin wadamada carbeed. tusaale ahaan waxa uu macalin ka ahaa muddo 5 sanadooda jaamacad ku taala sacuudiga magaalada madiina, jaamacad tiiba ayuu 5 sanadood wuxuu ka ahaa professor ka ahaa. waxa uu PhD ka haystaa maadada kiimikada ama chemistryga. maadadaas ayuu jaamacadaas 5 sanadood ka dhigayay. Leicester University sidoo kaleeto 2 sano ayuu macalin ka ahaa, professor ka ahaa oo ka dhigayay. haddana waxa uu ka shaqeeyaa oo uu macalin iyo cilmi baaraga ka yahay jaamacadda Nottingham. waxa uu maanta doctoorku ina deeqsiinaya oo na kala hadli doonaa sayniska sida uu qur-aanku u shaqeeyay ee uu u karaamiyey ugana hadlay iyo positionka uu dhigay. waxaan isaga kinexbaxayaa idinka iyo doctor maxamuud si uu mawduuciisaas inoogu qaadayo. falyatafadal mashkuur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan barnaamijkan halkan mawduuca cilmiga iyo aqoonta iyo Rabbi subxaanahu watacaala sida aqoonta ahmiyad khaasa u siiyey aan uga wada faa'iidaysano. aad bay runtii farax gelinaysaa. mawduucan wuxuu ku saabsan yahay guud ahaan aqoonta iyo cilmiga. khaasatan waxaan xoogga saaraya macnaheedu maaha inay ka ahmiyad badan tahay, laakiin si gaara waxaan u ifinayaa aqoontan maadiga loo yaqaan ama sayniska dadka u yaqaaniin iyo islaamku sida uu qiimeeyey ama qur-aankaba sida Rabbi subxaanahu watacaala uu ugu ishaaray. badanaa anigu markaynu cilmi ka hadlayno waxaynu kusoo koobnaa oo keliya cilmiga sharciga. cilmiga sharciga isagaa ugu sharaf badan oo ku wanaagsan, shaki kuma jiro. waa cilmiga qur-aanka iyo axaadiista iyo Rabbi subxaanahu watacaala ina barayay ina ku xeliyey. laakiin maanta waxaa si gaara mawduucyadu ugu saabsan yahay cilmigaa kale. haddaan marka mawduuca aan gudaga aan bilaabo, anigu sida idin sheegay waxaan hadda ka shaqeeyaa jaamacad ku taala Nottingham oo waxaan ka dhigaa maadadan chemistry iyo physics wax u dhexeeya, physical chemistry baa maadada magaceeda la yidhahdo. marka waa wax u dhexeeya isku dhex jira chemistry iyo physics iyo sometimes maths iyo waxbana waa soo galaan. mawduucan marka qur-aanka Rabbi subxaanahu watacaala waxa ma kuga sheegay waa su-aal baa in la isweydiiyey. waagii hore culimadu ay jireen hore diinta uma kala soocnay cilmiga maadiga iyo kan diiniga uma kala soocnay. saas daraadeed waxaa arkaysaa kutub fara badan oo diini ah oo foolimno badan oo ka mid yahay ama jabtaro badan oo ka mid yahay ay yihiin medicine kitaabka zaad almacaad maaragta tib nabawi imaam nawawi yirahdo ibnu qayyim al-jawziya kitaab dhan baa gooni loo daabacay baa jira oo tib nabawi. marka dhakhtarnimada iyo waxyaalaha la midka ahi cilmigana asalkiisa waxaa horumariyey runtii fadligiisa iskale
dadka muslimiinta xilliyadii yurubta ay ku jireen xilliyada mugdiga ay ku jireen iyagoo ay islaynaya sida naga hadda isu laynay ama caalamka islaamiga uu hadda uu takhalufka ugu jiro waaga yurubta ugu jirtay cidda cilmiga hormaraysay ama wax ka qabatay waxay ahaa dadka muslimiinta website baa jira la yidhaahdo 1001.com 1001.com sinkii websitekaasi in wax badan ay ku jiraan oo ifinaya waxyaalihii islaamku ay qabteen ama ay kusoo kordhiyeen caalamka xagga culumtan sayniska iyo wixii la xidhiidha ahmiyadda mawduucan waxaa muujinaya mar dhexdaasa laga joogo 50 sano ka hor journaalkaas time wuxuu qoray mawduuc runtii provocative ah oo aada dadka u taataansanaya ilaahay rumaysan ciwaanka coverka ku qoran waxa weeyaan is God dead ilaah ma dhinti waa ku qoran marka waxaa loo haystay in haddii sayniska wax badan laga ogaaday aan ilaah loo baahnayn oo dadku ilaah waxay ku baahdaan waa aqoon darrida iyo jahliga haya darteed laakiin marka la ogaado sida adduunku u shaqeeyo marka la ogaado ilaah looma baahna saasay dadka qaarkood ay aaminsanay khaasatan markii uu qoray Darwin boogiisa The Origin of Life oo uu theory-ga la yimi in waxa nooli uu yahay wax iska yimi oo kasoo noloshu iska samaysatay dadka noloshuna ay wax iska abuurantay hal sano bay ka abuurantay tadawur baa ku dhacay dadka hore halkaas ka soo jeeda adduunku qarax iska dhacay buu ku bilowday big bang inaad maqasho marmalina dhacaysa qarax iska dhacay baa adduunku samaysay marka mar haddii sirtii la fahmay halaad waxay tidhahdaan idaa curifa sabab batala sixir saasoo ma dhahan idaa curifa sabab batala sixir haddii sababka la ogaado sixirku waa furay iyagu marka waxay ku leeyihiin adduunka sixirkiisi waa furay oo mar haddii waxaa la ogaaday sida noloshu u bilaabantay mar haddii la ogaaday adduunkana siduu ku samaysmay cid ilaah iyo wax ka dambeeya iyo midina ma jirto God waa dhintay saasaa article lagu qoray 1966 wada jeedaan taariikhdu April ee journalkan Time 50 sano kadib journalkan The Wall Street Journal oo maraykanka journalada ugu afdheerka ah waa sanadkii lasoo dhaafay sanadkii tegay 2014 wuxuu qoray saynisku inuu isagaba laga ogaanaya ilaahay inuu jiro soo ma aragti cilmigii markuu kordhay oo wax badan la fahmay accidenti dib ay isu rogtay hadda waxa saynisku isagii baa caseka wuxuu samaynayaa ilaahay inuu jiro oo isagaaba laga ogaanayaa jiritaanka ilaahay qof markuu aqoon yeesho wax fahmo awal Darwin runtii dadku waxay u qabaan in wax badan ogaan Darwin waxba ma ogeyn xataa sida structureka salku ilaahay ma ogeyn DNA lama aqoon salku sidii waxa uu kaliya u sida safarku galay meel buu tegay jasiirada wuxuu arkay shimbiraha qaarkood oo kala duwan saaskooda waaweyn yahay in qaabka afkooda isku samaysay intaasuu markaas wuxuu yidhi dan waxaa meel bay kasoo wada jeeda halkaas unbaa lasii balbalaagay laakiin wax cilmi ah oo haba yaraatee la taaban karo oo nadariyada Darwin ay ku salaysan tahay lama rag badan oo runtii hadda waxaa jira saynisyahannaha oo maraykanka ka jira Discovery Institute la yidhaahdo isugu uran xoogoodu ama 100% waa dad Kirishtaan laakiin saynisyahannaha waxay iyagu u ololeeyaan waxa la yidhaahdo intelligent design inaad qaarkood maqale marasheegaya oo adduunkani inuusan ahayn wax iska yimi super power ay u ka dambeeyo waxaan wax iska iman karama waxaan insha Allah taala idin siin doonaa aqwaasha rag culamaa lama markii shareecada ka hadlayna aqwaasha culimada xoog bay leedahay Soomaa marka imaam Shaafici baa sidaa yiri imaam Ahmed baa sidaa yiri marka la yiraahdo aqwaal xoog badan saasoo kale waxaan siin doonaa insha Allah taala rag Nobel Prize ku qaatay physics-ka iyo mawaadiicdaas ragta culus ah
iyaguna aqwaashoodu waxa ay mawduuca kale ka yidhaahdeen ayaa insha allahu tacala kusii doonaa laakiin waxaa aada cajaa'ibay in marka konton sano kadib saan uu ciwaankii jaraadka uu isu bedelay aqwaasha culimada marka hadii sheegay waxaa ka mid ah masalan Paul Davies ninkaas waa astrophysicist waa dadkan spaceka iyo waxaa lamidka aada uga shaqeeya oo nin macruufa ninkaas qowlkiisa halkaas wuxuu yidhi waxaa daliil xoog badan iiga muuqda in adduunkani uu wax ka dambeeyaan inay wax ka dambeeyaan in adduunkani qof uu ku sameeyey fine tuning waxaa la yidhahda numberska adduunka su u shaqeeyo adduunka waxaa jira numbers hadday waxay iska bedelaan qaabka adduunku uu dhisan yahay aysan suuroobin numberska waxaa ka mida speed of light surcada iftiinku ku socdo waxaa ka mid ah gravitational accelerationka constantiga gravitational accelerationka ka mida waxaa ka mid a chargega electronka ka mida masska protonka iyo electronka ka mida waxyaalahaas oo dhami waa numbers magic numbers oo hadday iska bedelaan digit ka mid a haddii wax iska bedelaan sida nolosha hadda ay suuragal u tahay oo adduunku dhisay uma dhismi karo suuragal maaha marka waa inay jiraan qof numberskaa sidaas u sameeyey waa inay jiraan ninkaan marka wuxuu leeyahay suuragal maaha in numberskana ay iska yimaadeen waa inuu jiraa cid numberskaa ka dambeeya waa inuu jiraa design cid design garaysay adduunkan oo sidaas uu yahay ku samaysay waa inay jiraan wax iska imaan kara oo iska dhici kara adduunkani maaha ninkan kale oo Nobel Prize-ka isagu physics ku qaatay wuxuu leeyahay astronomigu waa cilmigan spaceka iyo planetska iyo waxa la midka ahi waxa uu magaarsiinayaa xaalad yaab oo ay in caalamkan laga abuuray meelan jirin isla markaana uu ka dambeeyo supernatural plan oo waa inuu jiraa cid ka dambaysa sadiqla nolol kama suura gasheen waa inay jiraan cid kale oo powerful oo adduunkan sidaan u sameeyey wax iska imaan kara oo saa u samaysmi karaa ma jiraan ninkanka saas labadaa nin oo kale haddii aan iyagana noloshooda soo qaato ninkan Nobel Prize in Physics 1981 soo ku guulaystay ninkan wuxuu leeyahay markaad eegto nolosha cajaa'ibteeda adduunka ka jirta qofku wuxuu isweydiin karaa why baa sidan wax ku jira keliya uma baahan in isweydiiya how see waxaan u shaqeeya qof kasta ay waa fahmi karaa see u shaqeeyaa remote-kani ama computerkana wax la midka ah laakiin waxaa u baahan why baan ugu baahana yaa waxaan sidaan ka dhigay see bay u yimaadeen qofkuna su-aashaas weydiiyo then wuxuu dhisaagaleeyay inuu I find a need for God wax noloshu adduunkana ilaah ugu baahan adduunkan jiritaankiisa wuxuu u baahan yahay ilaah ninkaana waa nin Nobel Prize ku guulaystay ninkan sidoo kale MIT waa instituutyada caalamka ugu sareeya uu ka mid yahay wuxuu ka yahay professor in physics isaguna sidoo kale uu leeyahay adduunka markaad fiiriso scientific understanding anagoo aan physical worldka ka haysan markaana daytada aanu hayno caalamka scientifical aanu ururinay arrintaas waxay nagaarsiinaysaa in uu jiro ilaah inuu ka dambeeyo caalamkan jiritaankiisa marka raggaas oo dhan waxay qarayaan xoogooda dad weli ilaah aaminsan maaha laakiin markay arkeen overwhelming powerful scientific data ee ay ururiyeen ayaa waxay go-aan ku gaareen inay jiro caalamkan ilaah ka dambeeya uusan ahayn wax iska imaan kara uusan ahayn haddaan marka su-aal idinkeedi weydiiyo imse qof baa horta waxbarasho GCSE iyo wax ka sareeya science ku qaatay maalidin baa gacanta taagi kartaa imse qof baa GCSE wax ka sareeya science ku qaatay maasha allah good ma arki kartaan sawiradaas ma magacaabi kartaan sawirada waxay yihiin waxaan rabaa inaan muujiyo interestiga dadku ay science-ka u hayaan sababtoo ah qadaayaadkani waxay qadaayaad mediaha aada ugu jiray asaabicdii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waxay ahayd qadaayaadka aada science uga hadlayay si badan
marka imisa wadna magacaabi kara meelahaas waxay yihiin ما شاء الله ninkaa dhalinyarada ku hormaraya ama ninka odaga ay kofi adiga keebaa dhulkiia kana dhulkiia kana intaan inoo dhulkii kuma jiro haye kaa u mare waa maxay waa dayaxi ومارس ما لكم اوكي كان واضح انه مارس لكن كاس ما هذا ما معي جزاك الله خير ما شاء الله نقاس سبوت اون كاس بلوتو بس وايمجز كي ودا بي وهذا هورايزن بروجكت ناسا اي ويك سكور اي سوق هذا وين bro laga diray dhulka ilaa 10 sano ka hor baa wuxuu gaaray maalin dhaweyd areadaas marka imagekaasi waa imagada hadda ugu cusub hadda laga hayo Pluto kana waa Mars kana kan wali Ingiriisku aad bay si ugu hadlayeen alcaadahay sababtoo ah probe ka mid ah probe-yada halkaas u jeedaan fiilay baa la yidhaahdaa fiilaygaas waa lander kan naag ingiriiska joogta baa design garaysay inuu kamid ah ingiriiska gaar u xiseeyay kana waa comet ay ku raadinayaan weli waxaa la raadinayaa noloshay ku bilaabatay cometkan ujeedadiis waxay probes baa la saaray si loo ogaado noloshu ma sanaday ka timi ma xidigaha kalaa noloshu ka timi mise dhulka ka abuurantay weli waxaa la raadinayaa noloshu meesha ka abuurantay hadda robkan wuxuu muujiyay trace ka mid ah DNA waxaan loo yidhaahdo amino acidska iyo waxa la midka oo proteinska ay ka samaysmaan weli marka waxaa la raadinayaa weli laguma qanacsana in la yidhaahdo noloshan wax iska imaan kara maaha laakiin ma comets dhulka ku dhacay baa traceska waxyaalaha yani nolosha ay ka abuurantay ma iyagaa keenay dhulka oo halkaas bay noloshu ka bilaabatay mise waa wax uun dhulka iska samaysmay dadka qaarkood waxay nadariyaa billions years ago 3 bilyan oo sano ka hor baa noloshu iska bilaabatay marka story baa jiray iyo sheeko dheer oo turkutaana qaabka ay sida la isleeyahay maaha wax cilmi iyo science ku saabsan wax la cabiri karo qaabka ay ku bilaabatay laakiin dad baa jira iska un riyooyin noocaas oo kalaa soo jeediyey marka weli hadda laakiin waa la raadinaya kharash weliba waxaa ku bixiyaa aan caadi ahayn oo billions of dollars baa weli waxaa ku bixiyaa bal in la helo wuxuun sirta noloshu ay ku bilaabatay in la helo adduunku wuxuu ku bilowday iyo waxoogaa xoogoodu saynisyahanadu meel bay isla dhigaan iyo waxay isla leeyihiin qaraxaas big bangkaaba ku bilowday adduunkana wuxuu ku dhamaan doonaa big crunch waxay iyago ku magacaabeen hal mar iyo waxoo dhan isla wada duwan taas hadda xoogoodu muran badan kama qabaan inay saxanta inay khaldada waa wax kale laakiin waxaan weli la fahamsanayn ilaa iyo imika waxaan weli la fahamsanayn noloshu say ku bilaabatay idana ma fahamsana tii baa marka la raadinaya noloshu say bay ku bilaabatay taas baa marka hadda kharash badan ugu bixinay okay magacyada waa hadda jaanigaas ku qaatay 8 sano waxaa lagu daray baalkan 2007 hadda dhowr wiil ka hor baa imageskan 12-15 imageskan projectkan 10 sano isna qaatay 2004 baa la daray Rosetta 2014kiina waa ay ku dul tagtay cometkaas kana waa Mars okay haddaan markaan u gudbo cilmiga iyo ahmiyadiisa si guud cilmiga uu ku jiro cilmiga sharciga ah ugu horeeyo cilmiga maadiga inuusan ka marhayn qur-aanku markuu ka hadlayo cilmiga ma kala saaro aqoon oo dhan buu rabbi subxana wataala qur-aanku kaga hadlay marka maadadan cilmigu waxay ka kooban tahay 3 xaraf
تاج العروس قاموس كاسي وحكو في معرفة إني أقومتها عرفه حق المعرفة قف واحد مركز لا وقفته ويقان أنا شيء كذي وأقومت أقوم نبض مركز على قفاس علم أيها هذه أقومتنا وحا لدوا الجهل قد مرها يشكك سيوتسيس كي وحلا متكاف وحيالا سلو حويه لدك كلمة أن أقومتها بالعلم بالروح أقومت رنتي وحي صوب على الأول كإله وحا أموري وحا أموري يقرب بس القرآن كأو اتمام فرق سبحانه وتعالى العلم يا أقومت وحا أموري إله أموري مخلوقاتك وحا أموري قلب نوح وأبوه ومقادير رب سبحانه وتعالى وأبوه إذا سمعت مسلم سيحب يدر إلى سيدو كان الأحيان في أموري رب سبحانه وتعالى آدم أموري أقومت كأمري وعلم آدم الأسماء كلها مركي ملايكتي ورب سبحانه وتعالى ويدي وحي كل قال سبحانه وتعالى إلا ما علمتنا مركي قلت كوستي أمورك رب سبحانه وتعالى وبآدم كأموري هي كهر بأدونك أبوتاكيس عالم ولا أبوتاكيس وعلى أمور قلم بأموري وحيك مركي نقطوع سودك القرآن وحبوري اقرأ باسم ربك الذي خلق أخذ وأقومت فهم نوح الأخير هي الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى الإنسان بكروحا من علم آيات في بوري القرآن كسوده وحوك صارين أقومت العلم إنسان كنا وحو حكوية هاي أما ضيب كل هي وأقومت وقدسنا أقوم لهاي تقول لهم نقول يا بهاي تكمل ولا هذا إنسان وحضر إنه ودولنا فهمتك وأقومته هي وحكاشة بين ودول ما أدري عن علمك إيو كلماتك ما أدري عن كلمة ظلمية قرآن كحكو سؤال ولا تضوم وقول إطلاق لسجارة هذا سيدة فرحة بين الله سبحانه وتعالى وتركيزي أقومت محاضرة خاصة بأنت طبعا إن لها العلم أهمية سيئة فائدة الأولية هاي أنا هذا التركيز كيبو رمتي ما هدينا حاصل وهذا الإنسان فضل علماء يشان يقول رب سبحانه وسلوه إليه سقى مخاتك الشيء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم غاية من القصة إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب سمد معها ساسا سبحانه وتعالى مركوح وكرامي علم يا أقومته وضدك أقومته علم ولا ضدك سبحانه وتعالى وقر ياله مركا والعلم ذاني علم وحي سوكر كمان علم ولا سوكر علم كستوء مفيدة واحترم له ودون كان إلا قالوا كصابصا علم قاسنا رتي وقاسنا يا ربي وقاسنا يا زعل قصدنا يقف قاسنا العلم وشبه هذا الجماعة مهم وياه أوكي موضوع هذا مركز كسر الله أنا داي بروني أكن آيات رب سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إلهي وحول يوم صلى الله عليه وسلم كتابك وقصد الجنين سوى واحد استعداني ما فرطنا في الكتاب من شيء كتابك وحوك يوم النتيجة إذا أصبح وحي كل ليس إمام سبحانه وتعالى وحي كتابه وبعدي أن فهمنا وإنا فهمنا ومسارك إن فهمنا وإنا فهمنا ووحكا لكن رب سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء طبعا وحونا على حروبيس وحي شرائع لكو سابسا إله سبحانه وتعالى سيدي لو عابل لها حلال يا حرام لكو سابسا ومقدمة هو يسوي لكن ما أي كلام أحسن هاي علومك كلام بالشريعة علوم الشرعية هو نمبر 1 لكن علوم الكلام ما لك كلام أحسن بالشريعة أنا عطينا سنة علوم كلام أحسن أنا سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق آيات كي محمد سندونا ذاتك آفاق سبيس مركا exploration رسمين آيات كي سندونا وذو شيء هذا هذا قارب إن الهاي الأسترونومي وحقوق قاسيرية الإلهي إنه تشرل وقال سمع هذا الإلهي هو سنبه هذا رجي أن هذا القوة أن صار من هداي
سنريهم آياتنا في الآفاق هكذا العلماء ساينسيانها الله يكون إسلامين markay ogaadeen islaamku sida uu qur-aanku u sharaxay qur-aanku sida u sharaxay embryology waa cilmiga kan janiinka ilmaha dhulka ku jira iyo maraxisha uu maro iyo qaabka uu ku samaysan yahay qur-aanku si tafsiila waxyaala qaarkood si tafsiil qur-aanku ka hadlay oo faahfaahsan xilligaas dambana jirin scan iyo maxaan ku rahdaa waxyaala lamida microscope iyo waxyaalaas ma aanay jirin laabab waaweyn cidina oranayso nabina maxaa sala alla alay slam saynisyahan buu ahaa qofna ma jiro haddana culumta qaarkood si aan sayniska runtiisa uga hadlay ayuu uga hadlay qur-aanku marka sanuriim aayatina fi laafaaq wa fii anfusihim iyagana aayaadka dadka naftigoodaanu ka tusinayna yani qaab marka la fahmo sida qofku jirkiisa u shaqeeyay iyo wax lamidka baan ka tusinayna xataa yatabayana lahum anahum alxaq ilaa ay u caddaato inuu yahay qur-aankan iyo diintan inay xaq tahay awalam yakfi birabbika anahu calaa kulli shayin shahiid ilaahay subxaana watacaala yayn ku fulay inuu wax walba isagu uu og yahay oo markaanta ka yahay intaas iyadoo ay jirto haddana waxaan rabaa inaan mar walba tankiidiyo qur-aanku marna maaha textbook oo ku saabsan science dadka hadda cijaaska u hadla way xoogka saaraan in ay nadariyo kasta ama theory kasta oo science inay aayaadka qaarka ku fasiraan arrintaas runtii ilama saxna sababtoo ah qur-aanka looma soo dejin asalkiisa dad caraba ula hadlayay ilaa qiyaama saaca looga jiraya qof walba aqoontiisu intay gaarsiisan tahay buuna fahmaya laakiin looma soo dejin inuu noqo textbook oo science inuu noqdo qur-aanka looma soo dejin laakiin rabbi subxana wataala qur-aanka wuxuu usoo dejiyay inuu yahay hanuun dadka oo dhan rabbi subxaana watacaala uu hanuuninay ayaa loo soo dejiyey intaas marka waa mujida saasay tahay scientific facts fara badan ayaa qur-aanka iyo xadiista rabbi subxaana watacaala uu ku sheegay oo ayna suuragal ahayn xilligii nabigu joogay sala alla alay slam in la ogaado xilligii nabigu joogay in la ogaado suuragal ma aanay ahayn waxyaalaha marka keenaya inuu qur-aanku xaq yahay ayaa muujinay waxaa runtii kaloo cajaa'ib aad ogtihiinba hadda maalin dhaweyd in birmingham nasiib baad u lahaydeen jamacadda birmingham inay kashfuday nusqa ka mida qur-aan waan isbedelin oo ay ku sameeyeen waxaa la yidhahdo carbon dating radioactive carbon dating ay ku ogaadeen in exactly nusqada hadda taalla ay tahay qur-aankii xilligii nabiga la haysay sala allahu calayh wasalam oo qur-aanka usan isbedelin waxyaalaha waxkutinaysaa science baa wuxuu xaqiijinaya scientific messageska waxay xaqiijinayaan qur-aankii inuu yahay run inuu yahay oo dhaba inuu yahay waxyaalaha faa'iidada ka mid tahay runtii ay leedahay marka factiyada qaarkood qur-aanku iyo xadiis nabigu sheegay sala alay wasalam suuragal maan xilligiisa in la ogaado nabiguna waxaan ognahay inuu ummi ahaa subxana qori jiray waxaan akrin jiray marka laga filmay inuu qur-aanka runtii waxaa ku jira ilaa 1,000 aayadood in ka badan oo ka hadlaya waxyaalahan scientifica ama science-ka la xiriira masalan featureska universe ku saabsan ay ka hadlayaan spaceka earthka qoraxda starska oceanska riverska thunderska ilaaca iyo unkadka iyo waxa lamidka waxyaalahaas qur-aanka ka sheekana aad bay u fara badan yihin ilaa 1,000 aayadood ka badan qur-aankuna waa imisa aayado 6,000 iyo xoogaa soo maa 6,000 plus marka number badan bay ka noqonaya inta ka sheekeynaya waxyaalaha interstitial featureska ka midka sidoo kale embryology hadda waynu tilmaanay iyo stageska ilaahay subxaana watacaala sida uu u abuuray bini aadamka oo qur-aanku si tafaasiila iyadana uga sheegay u aha anu marka waxaa rabaa inaan amsilo aan soo qaadso dhowr ah 1,000 aayadood ka badan kama sheekeyn karo danfulay laakiin waxaa rabaa amsilo dhow ahmiyadda science uu leeyahay qur-aanka rabbi subxaana watacaala uu ku tilmaamay inaan ka sheekeeyo oo kusoo fuliyo masalan halkan rabbi subxaana watacaala wuxuu yihi yasaluunaka maada uxilla lahum dadku waxay ku weydiinayaan maxaa cuntada xalaal uga ah wuxuu rabbi subxaana watacaala uu ku jawaabay qul uxilla lakum ayibaat waxaa ladin xalaaleeyay wixii wanaagsan ayibaadka waxyaalaha rabbi subxaana
وحلقنا ووحكنا لكن وحال حرمي حكمة باكوشتا حكمة أمريكا آخر كل شيء بيعرض لنا إن الموضوع مهم لكن وين تشرح حكمة قدم ورود ساينس كلام عادية هنا يكوشتا هذا كل سبحانه وتعالى ويري قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وحتكون ترى هذا وحي الذي وحي إلي أنه وقف بحكمه وحرام كأمه إلا وحن كأهين إلا أن يكون ميتة بقتي نكون بقتي فدون نفس بقتي حرام كنا كين يدل سمع أو دما مسفوحا ديك النفس كنا كلا قال كذاته لكن نفس الجورع ديك كسر ذاته سكن وحرام أو لحم خنزير أو هيك المفاكهة فإنه رجس وقرص كالولي وخسكار مش عارف يروحوا إلى كانوا وقرص فإنه رجس إلى كانوا مفارق وقرص أو فسقا وإلى لغير الله به كان دمنا أقل يواسل الله عنه وسووا إن قفكي نفك ولا جورعي لكن وحنا جورعي إلهي نفسي وحنا أصنام ويالي وحيارك بالله جورعي ونفكي إلهي ما يسلمه ما حسن تنمر واحد هذا الشيء ميديكال بروبلم لحي إلى معه انتظر يلا عقل لكن waxaan rabaa inaan xoog saaro saddex laamadood oo kale baktiga dhiigga laxmul khinziirka ma jiraan scientific facts hadaynaya in ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu naxariistay inuuna ka fogeeyna ka xarin rabbi naxariistii inay tahay inayna waxyaalaha u dhowaan oo ayna saynisku ku adagtakiin waxaan ku hormarayaa marka doofaarka ku hormaraya doofaarka waxaad u jeedaan halkan laba chart labada saad arki kartaan screenku aada u daciif yahay aad u arki kartaan chartigani wuxuu ku saabsan yahay marka alcoholka cabitaanka alcoholka iyo xanuunkan kansarka beerka ku dhaca siday calaaqo u leeyihin ayay ku saabsan yahay daytadan waa daytooyin ay publish gareeyeen medical journals oo authentic rag gaala ah baa qoray ku sameeyay qoran maaha sida loo oran waxaa lagu banaysanayaa mawduuca ka hadlaya marka meeshan correlationka xiriirka ka dhexeeya labadaas kansarka beerka iyo alcoholka cabitaankiisa iyo xiriir ka dhexeeya kansarka beerka iyo doofaarka hilibkiisa cunitaankiisa way kala labadaan jir labadaba soo xaraamina kama خلوا محرار لو صاحنا حرام وفارقنا والله مركو في صدر بيتل هل كان بوينت هذا جدا correlation factor من هذا R 0.71 معناه لو حول بقول كيلو تدوات الكو أيوك كان عبدان الكحول كو كسر كبار هل كان هو ضمن خمر هذا لو عبد ugu badan dhimashada ay ugu badan tahay kansarka beerka u dhinta halkan boontiga halkaa ku waran oo mid banaanka inuu taagan yahay labada meeloodba waa Israa'iil halkaasay ka arkay waa yuhuud marka doofaarka ma cunto rumaga khamrigana ay iska keenaysan aada cabeen ma huwa taas laakiin doofaarka kole hilibkiisa ma cunaan intaa waa oga rumaga labada boontiga marka iyagaa ugu yar halkan waxaa ku dhow Austria iyo Germany iyo Scandinavia garabka jooga qaarkood Denmark kaga yimid iyagaa loo sheegay baalkana looga cunay kale aada buu labada meelood ba ay ugu badan yihiin Soomaaliya kan marka doofaarku alcoholka waa ka khatarsan yahay correlation factorkiisu waa 83 boqolkiiba Soomaaliya boqolkiiba 83 qofku u baahan linkigaas buu تصور تقاطع مكين كذا details مفروضة المعلومات المشي سورة الأولى فكأن الإنسان لو فارق هل استقول لي شايف سؤال موجود لي إسلام كان حتى نوع فاتك لو فارق فات موجود لي فاتك اسمه طوال نص شويتي ونوع فاتك كاسترول كحتى وفق كانوا مكملين هنا عاصمة وحنون صعري ومحمد الصعوني مثلا الصعوني ممكن يروح عن واقر وحكى أخلاقيات كلا
faraha badan ee doofaarka inuu qashinka cuno waa xayawaanada kuwa saxaradooda inuu ka mid yahay inuusan dayro lahayn taas soomaalida ka mahmahano doofaarku maxay dhaha ficil doofaar soo ma garan marka waxyaalahaasna waa xikam kale oo iyagu ziyaada ah oo ilaahay wuxuu nooga xarimay ila wax waa la kala qaada haddaad wax qashin cuna aada cunto oo jirkaagi wuxuu gelaya adiguna qashin cuni waad noqonaysaa soo ma laakiin xikamka kale ee khatarta kale ee uu leeyahay waxaa ku jira womiska qaarkood oo doofaarka keliya laga helo oo dadka tiwomka iyo waxa lamidka oo dadka cunaa calooshada ku dhasha oo qaarkood intuu dheeraada xataa dabada kasoo gito xirigaas isagoo madhicirka afkiisu ku dhegan yahay madhicirka afkiisu ku dhegan yahay marka baalkani aada buu runtii wuxuu yahay xigmadaasa marka ku jirta in rabbi subxana wa taala waxaa dhiigga maxaa loo xaray dhiigga masfuuxa isaga in la cuno maxaa loo xaray faalaha laga ahaado hadday offensive noqoto waxaa la ii sheegay soomaalida meelaha qaarkood in dhiigga marka neefka lagu dhufto midada inta weel loo dhigo dumarka markay dhalaan la siiyo oo la xabsiyo waxba ka jira arrintaas ya waxbaa ka jira arrintaas alaleena maa faalaha laga ahaado haddaysan waxba ka jirin wax faacti aan sheegaya maaha laakiin waa wax kuturkutaana wey arrintaas marka dhiiggu waa xaaraam isagoo dhiiggu muxuu xaaraam ku noqday runtii dhiiggu nolosha qofka muhiim buu weeye maxaa yeelay dhiiggu oxygenka isagaa qaado oo jirkeenu wareejiya islamarkaana vitaminska jirka ku jira iyo hormoneska iyo proteinska iyo sugar fat everything on jirkaan u baahan yahay transportationka qaada ee jirka gaarsiiyayo waa black soo ma dhiigga isagaa qaado islamarkaana dhiiggu wax kasta oo qashina oo quruna oo jirka ka baxayana isagaa qaada wax kasta oo qashina oo quruna oo jirka kasoo baxaya iyagana dhiiggu isagii baa haddana qaada somaaragta waxaa ka mid ah qashinada dhiigga uu qaado kaadida dadka keliyahana fashilmaan ee keliyu shaqayn waayaan ee kaashi waaya maxaa lagu sameeya hagee kaadida laga soo saara dhiiggaa laga soo saara dhiiggaa laga mira dialysiska marka mashiinka la geliyo dhiiggaa laga miraa kaadidii soo ma kaadidii marka xagee bay ku jirtaa dhiig maxaa dhacaya haddii qofkii dhiigga laga miri waayo maxaa dhacaya qofkaasi horu ka dhigmay haddii kaadidu dhiigga ay ku jirto concentrationka kaadidu hadday badato ee dhiiggeeda aan laga saarin ila keliya waa mashiinka sifeynayay haddii kelidii istaagto ee aan laga saarin qofkaasi waa fatal consequence horu ka dhimanaya qofkaas marka kaadidu saas sidoo kale waxaa ku dhacaya brain damage kaadidu waxa ay dhaawacaysaa maskaxda haddii qofka ay ku badato dhiigga aan laga saarin waxay taageeranaysaa maskaxda waxaa kaloo dhiigga ka buuxa microbes waxyaala bacteria iyo wax lamida oo iyaguna cayaanaad noocaasa oo siday u fara badan yihiin ay og yahay ilaahay baa qaar faa'iidadana waa jiraan oo jirka ku jira soo ma garan marka balance baa jira oo waxaa sifeeya si joogto ah beerka iyo wax lamidkaahi joogta u sifeynaya haddii marka balansigaas meesha ka baxo oo dhiiggiio keliya uu yahay isla markaana wixii dilayay dhiigga ila jirku mashiin fara badan baa jirkeena ku jira oo qaarkood ay dilayaan baalada qaarkoodna sifeynayaan marka la waayo wixii waxay ku jirayaan dhiiggay ku jirayaan runtii dhiiggu sidoo kale cunitaanka qofka bini aadamka saalix ma aha sabab saalix ma ahayn wax proteinska dhiigga ku jira ee la cuni karo boqolkiiba 8 boqolkiiba 98 hemoglobinka iyo proteinada kale ee ku jira waa inedible yani wax la cuni karo jirku uu qaadan kara maaha qofku uu dhaajis garayn karo waxaanu jirkeenu ay qaadan karaan maaha oo caloosha ay accept garayn karto maaha marka xikamka waxay ka mid tahay subxaana wa tacaala uu nooga mamnuucay inaynu dhiigga cabno baktiga waxaa dad garateen dhiigga dhibaatadiisa baktigana inaad garateen ila baktigu qofku markuu dhinto dhiiggi ka bixi mayo dhiiggi miyuu ka baxay maya dhiig ka bixi dhiiggii oo qurunkiisi wata isla markaana mushiinadii sifeynayay
baarkii iyo keliyihii iyo wixii la midkaa iyo wadnihii boongareynayay intuba ay istaageen markiiba uu contamination baa ku dhacay waana ka qofku marku baktay inuu dheef baktay uray wixii bacteria ah ee quruna meesha ku jiray jirka wixii difaaciisa ahaa ee baalansigarana meesha ka baxaya iyagii baa isu soo haraya markaasay waxay ku qaadayaan waxyaalaha ogyahay bay ku qaadayaan waktigu marka saas uu soo uraya decomposition baa ku dhacay jirkii oo dhan wixii dhan waa kala qaadanaya waa uraya wax la uri kara maaha xayawaan cudurrada lama malayn karo ka dhalan kara xayawaanada waxaynu kala lamid noqonaynaa dhanka akhlaaqiyaadkana sida duwaag oo kale iyo baalada xayawaanka wax lamidkaa iyo waxaa maqsuun kalena lamid baynu noqonayna iyo wax lamidkaa wataala rabbi subxaana watacaala waa ina kala qiimo badan yahay in daruura ay mararka qaarkood keento maaha ilaa man qurba qofku oo nafta ku celistigaado maahan qofku inuu cuno isaguna waa okay saddexdaa marka ilaahayna ka mamnuucay saddexduba scientific facts baa caddaynaya in xikmooyin waaweyn ay ka mid yihiin rabbi subxaana watacaala uu noo sheegay waxaan rabaa marka inaan dhinaca astrophysics-kana wax ka tilmaamo iyo qur-aanku waxa uu tilmaamo aayaddan suuratu yaasiin rabbi subxana wataala uu sheegay waaayatu lahum alleylu naslahu minhu nahaar faidaa hum mudlimuun marka ka sheekan habeenkay maalintu sida u dhashaan habeenkay maalintu qaabka u dhashaan dadka xoogiisu taa in fahamsanayaan malaya qaabkii habeenkay maalin bay u dhashaan habeenkay maalinta maxaa dhaliya hal qof iga jawaaba raba habeenkay maalinta soo dhashaa qoraxda dhacda qoraxda inoo dhacdaa qoraxdii waa soo baxday waa dhacday saasay u dhashaan see u dhashaan habeenkay maalinta ayaa dhashay sojisa si maadanka adeeg ayaa waa maxay wareega dhulku wareegayo okay taas waa hal jawaab kanaan rabaa habeenka maalinta soo dhashaan hadda ilahay qur-aanku waa sheegay laakiin see u dhashaan habeenka maalinku waxaa dhaliya dhulku inuu isagu islaba rago maaha inuu wareego dhulku isagu inuu rotation sameeyo keligii saan inuu isu laba rago saasa habeenka maalintu ay ku dhashaan okay qoraxdina halka wuxuu ku yiri washamsu tajri limustaqarrin laha qoraxdina waa ordaysaa faacka qoraxdu mataalintiisa waa ordaysaa maxaa jugraafiga lana ku sheega qoraxdu mataalintiisa waa ordaysaa qoraxda waa taagan soo ma okay labada jawaabba sax wey qoraxda waana ordaysaa waana taaganta labada jawaabba waa sax qoraxda marka dhulka loo fiiriyo waa taaganta solar systemka marka la fiiriyo oo dhulka iyo planetskiisu qoraxda waa taaganta waxa soconayaayo waa planetska qoraxda ku wareegay sida marka loo sii fiiriyo dayaxa iyo dhulku u taaganya dayaxuna u soconay dayaxi dhulka marka lasu aago inagu hadda ma taaganahay mise waa soconayna ma taaganahay mise waa soconayna waynu soconayna waana taagana waa taaganahay de halku naga fafadhina waana soconayna dhul baynu saarana sidii diyaaradii oo kale spaceka maraya na waynu saarana waa sidii qof diyaarad dhex fadhi oo kale qofka diyaarad ku dhex fadhi isma oga inuu soconayo sooma qofka ku-xigaad la sheekaysanaysaa haddii daaqadaha xataa aad fiiriso wax dhaqaaqay ujeedida soconaya ma dareemi karti inaad soconaysa qofkii wuxuuna jaraya intaas oo xawaaraha oo jaraya marka hadda waynu fadhinaa xawaaraha dhulku isku laba rogaya habeenkiiga maalinta uu ku sameeyo waa 1,000 kilomitr saacadeed wax sahal habeen dhulku isrogayo waa 1,000 kilomitr saacadeed saacadda wuxuu isrogayaa 1,000 kilomitr xawaaraha dhulku isku rogayo way saas isku rogayo marka qoraxduna solar systemka oo dhan ah oo wada soconaya isabayi solar system dhan wada soconaya isabayi halkan markada waa Milky Way galaxy waa galaxyga matarada aynu caalamkeenu ka mid yahay waa kartuunkani lagu sameeyey halkan qoraxdii taasoo kale way taqriiban waxa ku hareeraysan ag soconayaan waa planetski oo kale saasay marka u wada wareegayaan planetska iyo waxoo dhan halkan marka solar systemka oo dhami surcada uu ku soconayo qoraxda iyo majmuucadeeda oo wada socda surcada ay ku soconayaan waa 500,000 oo mayl saacadeed
second دقيقة مركبة عالم كان إنه كنا والله يزور استنكيسو وحطنا يا إنسان لا تنكر كيلومتر في شيء ما درسني والشمس تجري لمستقر لها هل كانوا في السوق وكل في فلك يسبح وكل أو مضاف إليه كل ومحذوف كل شيء واحد استوى عالم كده وسعودية ذرنا إلكترونيك لموفي عالم بطلانتكي وموف قريني صور ستنكي وموف قريني وكله في فلك يسبحون هل كان إنه وحيكون قال ليس طبعا صور ستنكون هل شيء رسمي وحيكون قال ليس لا تقول مليون أو سنة ما يبقى عن تاني صور ستنكون هل شيء رسمي نقول صور فرنسا استعمل هل أيو ورجع وتعالى كما قلت لك أنا نسوي قرحنا لواتن يتداول المعلومات ومرة بيروتيشن فرنسا بنك فرنسا تقولنا صدري كوي صدري معلومات ومرة بينا كلام في المدرسة قرحنا مرة واحد سان ويفيس مرة كان ميديا نيوز كما قشان بيسون ديسا قرحنا مرة لأنه ماجنتس قرحنا إيو waxaa isticmaalaya magnetka dhulka saadaraad markaas oo kale waa halis okay halkan marka waxaa inaan soo kartuunkani marka wuxuu idin sahlaya inaad aragtaan sida ay majmuuca shamsiya oo wada socota ay u wada ordayaan dhulkii iyo qoraxdii iyo wixii oo dhan wada socdo kullu fi falakin yasbahu internetka shaqeeyaa hajiyay internetka kuxeynayay marka insha allah shaqeeyaa marka planets inay rotogaranayaan qoraxda ay ku wareegayaan maaragta hadda waa qoraxda waa taariikhda ku jirta kuwana waa planetskii weya waxaa ka bixi doonaa halkan marka solar systemka oo dhan inuu spaceka ku soconayo 70,000 kilomitr saacadiiba hadda marka waa kan qoraxda waatan planetskiina waa qoraxda wuxuu dhan baa wada soconaya iyagoo dhan baa spiralinkaas sameynaya soomaalida qoraxdii waata qoraxdii planetski waa kuwa saasay sidaba ordayaan labadooda halkan ku fiirsan soomaalida muxuu leeyahay لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار هذا كما ولا الليل كما القمرية كما ستصور قمرية ثم الكلام فاسستورد العالم كوي وكل في فلك يسبحون حقائق خاصة بالملك سبحانه وتعالى إن وكل شيء القرآن وكل شيء القرآن كحق نبي سبحانه وتعالى وكل شيء كان مواضيع دائما لم سمعت سنة كل شيء ساينس كو lecture discovery-ga iyo darsigaas oo aqooneed astrophysics iyo waxa lamidka loo leeyahay ama scientific facts-ka kale runtii ma aanay jirin okay concluding remarks waxaynu kusoo gabagabaynaynaa marka insha allahu tacaala mawduuca boran buu isu bedelay aakhirkii marka waa inuu soo gabagabayo videogaas xoogaa insha allahu tacaala intaasi waxay ahayd entertainment marka quraanka iyo sunnadu runtii ahmiyad weyn bay waxay siinayaan cilmiga aqoonta dhabta aqoon kasta maaha aqoonta dhabta ee xaqaaqa ku salaysan ahmiyad bay siinayaan quraanka factska ku soo aroray oo dhan waa in sidooda lagu aqbalo ama aynu fahanna xikmada ku jirta ama yaynaan fahmi waa inaynu sidiisa iyo xaqnimadiisa runtii aynu ku aqbalo quraanku ma aha science textbookna ma aha ويان مسؤول ما إنه والبآيات القرآن لغة الوحي ونظريات أنشرين